waxaad sheegtay page-ka hogaamiye ku qortay inaad lahayn soma أنا بيج فيسبوك دمبلي بيج تيك توك عليها حوقتنا وحقوسه قدبنا بيج تيك توك جي sidee aad ku heshay telefoon aad ku hadasho xabsiga ku jirto ilaa xorriyadda ka qaadneed xafiiska xanaanta waxay soo gudbiyeen adigoo idaacad la hadla oo xabsiga dhexa ku jira idaacadda la hadasho xafiiska xanaanta waxay sheegeen dooddoodii markay soo gudbinayaan 114 inaad wada bajaaj aheeday laysin la'aan ahayd ma jirto arrintaas صح laysin maysid صح ليش hore waxaad u sheegtay adiga qareenkuna oo su'aal ka weydiiyay xafiiska xeerlaantuna ay ku doodeen in fiidiyoogii la soo bandhigana ay ka mid aheeday in sababta booliska qof ka mid ay kula soo xiriireen ay rabaan inay ku sumcad dilaan qofsi ku geystaan lagu dilo dhibaato lagu sameeyo see ku ogaato waxaas xogtaas see goorma lagu soo xiray 12 أبريل 12 أبريل xagee lagaa xiray إيريدا دقمة هذن يا تلاحة إيريدا maxaad ka shaqaysaa adiga هذا مركز ليش وحرة مش غينين normal shaqadaada maxaa waa وبجاج لا هاي bajaaj adiga ma iskale bajaaj ma soo kiro كريت xilli aad goorma kugu dambeysay أسبوعين أنت هذه مركز لا تني شن عشو مش قينا لا تشن عشو كهر حرتان كي جاهن bajaaj laash ur ma leeyihiin ور يعني daladay ku midaysan yihiin طبعا دلده وحي هوسي مادان جديدك gaadiidka bajaaj si gaar wax u malahan ما سيجار wax uma laha bajaaj waxaad sheegtay page-ka hogaamiye ku qortay inaad lahayn soma أنا بيج فيسبوك دمبلي بيج تيك توك عليها حوقتنا وحقوسه قدبنا بيج تيك توك جي page oo malihid oo فيسبوك ملي بيج تيك توك عليها حوقتنا تيك توك أقوسه قدبنا xogahan hadda intee kugu dubsay تيك توك أقوسه قدبيه برت تيك توك page-ka TikTok maxaa ku qoran سعدي بجاج xilli wax la soo dhigo goorma ugu dambeysay والله ما أقان أنا هدرت موبايل سكرين ما هستو ma yaa kala wax dhiga يا adiga lama wax dhiga mise cid kala wax dhiga ما حد ما أقان واحد يجمعه لكن ما يور دم بيس su-aashiisa faham أيه page-ka qofka ama waa breakfast oo asiga u gaar yahay cid kale ma haysato ama dad kala haay ما يبيج كي في adigu ku gaari su'aalaha qaranku ku weydiinayay waxaa ka mid ahay hadallada aad ka dhahday idaacadda markaad ka hadlaysay oo ku saabsanay inaadan wax cunin mar kale ma noogu celi kartaa ها haye waxaa dhacday marka 12 abriil ee soo xiray 12 abriil lagu xiray kow saldhiga degmada xamar jaja waa la keenay abaaro 6 saac bar 7 saac meelahaas ay tahay taliyay saldhiga degmada xamar jaja raxmo sandheer ay aragnay xafiiskaas ku aragnay marka leysii xiray marka waxaa dhahay taliye maanta oo dhan wax ma cunin xilligaana la taagan yahay waxaa rabaa in cunto la ii keeno haddaysan saldhiga cunto lagu karin waxaa u baahanahay taleefankeyga lacag ku jirta hala ii qaad cunto hala ii keeno meesan dhicin marka cunto in la ii keeno maalinka leesoo xir maalinteeda kale aa cunto la ii keenay oo baarihi marka maalinta leesoo xir maalinta xigtay maalinta ku xigtay 13 abriil xitaa 14 abriil ee haa aa cunto la keenay waa markaas oo baxaayo oo la ii keenay ahayd horgeynta waa la celiyay isla maalinta horgeena maxkamadda lagu keenay 13 abriil haa horgeena la ii sameeyay hay waa la celiyay wax cunto leema siin marka isla saldhiga lagu weel isla saldhiga la celiyay haa maalinkaas isla maalinta 13 ayadana cunto leema siin sidii ay ugu dhamaatay xabsiga dhexe goorma u wareeg xabsiga dhexe 3 maalmood mise 2 maalin kadib aa la geeyay
maalinta xabsiga dhexe gashay ma taqaana ما يا ma xasuustaa ما هو لاكس لو ما نكهر إن لو ما نكتب إن هذا جعله هرجينته أم سدح ما نكهر okay doonta xafiiska xalaalinta cadeymaha ay soo bandhigeen waxaa ka mid aheeday in 4 maalin waxba ma cun idaacadda ka dhahda وقوة هاي مالك محكمة أو مالنت أو لقي حبس قد حق ومالن حل محابيس تقاضي إقاتين قف كست أو جران له وكحرنا حبس قد حق جران كيسوق قات قاضيسه مركز كدب إن وحوا إن قفكم حبس جاي على كينو صبحي كلا أو حالة سيا جران كيسوق حسابيا صبحي ساسو كلا قراعد وحمعن قاضية هذا مركز marka wax cunay total marka 3 maalin adiga haaf meelahaas ahayd waxaana wax cunin inta yaani aaxirna ahayd okay maalintii 12 abriil 6 saac iyo bar ayaa xabsiga loo keenay xamar rajab loo keenay maalintaas waxba ma cun sida sheegtay 13 abriil oo maxkamadda horgeel lagu keenay waxa cunta lagu siiyay subaxii alla siiyay quraac saasada Soma laba maalin kadibna xabsiga dhaxal aligiyada may labadaas maalin hal maalin kamid oo joogo waxaan ku dhahay 12 waa lagu soo xiray waxba ma cunin 13 raashin waa lagu siiyay maxkamadduna waa lagu keenay sax waxaad sheegtay laba maalin kadib xabsiga dhaxal lagu geeyay okay labadaas maalin kadib wax xabsiga lagu geeyay wixii ka horeysay wax ma cunaysa oo 13 14 iyo 15 mas wax ma cun labadaas maalin ka dambeysay laba maalin kamid ah hal maalin kamid ah wax ma cunin wax cuntay ligama siinin intee joogtaa markaas degmada xamar jawaa joogaa waka marka total isku darka 4 maalin ahayd aan wax cunin oo aan xirnaay okay xafiiska xalaalinta waxay soo gudbiyeen adigoo idaacad la hadla oo xabsiga dhaxa ku jira idaacad la hadash aan idaacad oo gaar ah ma ahayn idaacad qof ay soo wacay idaacada ka socda ma idhihin waa la hadlanay aniga idaacad ama qofkaas ay xitaa isku keeshay qofku uu yahay hay cid la hadash ma taqaanid ya cid la hadash ma aqaani xitaa ma isku keesheegin okay sidee aad ku hesho telefoon aad ku hadasho xabsiga ku jirtay xorriyadda ka qaadneed kulay telefoon oo meesha yaalo ahaayo qolka dhinac ka yaalo oo telefoon hash dabcan waa helay qof kasta oo xabsiga ku jira telefoon ma helaa may markaas waxa la gabar oo yaani waa isku dhiibaa qof kasta dadkiisu la hadlaa dadka ku xiran oo meesha dumarka oo adiga ku xiran imisa qof ku la xiran ma tirada inta qolka ku wada jirnaa adii 25 miya ahayn 25 qof oo qolka adiga ku la xiran oo aan telefoon helin adiga see kugu suurta gashay inaad hesho telefoon may telefoonka maamulka dhiibo waxa la qof waliba qofkaaga la hadal saasaan isku dhiibaa okay run waaye warkaas waa saxantaa sheegaysa laakiin waxaa tir qof ay soo wacay ma garanay wuxuu yahay qofka adiga inaad telefoon xilliga haysatay ku ogaad ma ogi kale in hore loogu sheegay markaas ma aqaan laakiin sacdi bajaaj ma aha sidii marka xilliga telefoonka lagu dhiibay isla qofka ku soo wacay marka gabar iga horeysay oo hadlaysay kadib tookal isku dhiibay ani marka la ii dhiibana saas ahayd hore la iga soo wacay waa qabta anigana hore waxaad u sheegtay adiga qareenkuna oo su'aal ka weydiiyay xafiiska xeerlaalintuna ay ku doodeen in fiidiyoogii la soo bandhigana ay kamid aheeday in sababta booliska qof kamid ay kula soo xiriireen ay rabaan inay ku sumcad dilaan kufsi ku geystaan lagu dilo dhibaato lagu sameeyo si ku ogaato waxaas xogtaas maya midda kufsiga difaac nafsi aan iga ahayd cabsi aan iga ahayd ma ahayn qof inuu isoo waco idhaha waa ku kufsana ama iigu hanjow ma ahayn laakiin xaraga waa yaani way jirtay marka qofku soo wacday oo arinta ku sheegtay ma jirto oo kufsiga iyo in video laga duuba difaac nafsi iyo cabsi aan iga ahayd
فيديو kala la soo bandhigo oo aad sheegayso 16 mase 17 qof oo mas'uuliyiin oo gobolka Banaadir ka tirsan waxaad ku doodo markii su'aal uu ku weydiiyay qareenku in aad qodobka 31 ee dastuurka xaq u leedahay in xogta la helo qofku xaq u leeyahay inuu xog helo dastuurku sidaas waa sheegaa sax laakiin maxaa waxa gaarka ah oo ka maqnay xogtaas gaarka maxay oo adiga sida gaarka u tirinayso may maadaama uu wadanka oo qabiil gaarna u tirinayso oo baabahay ay leeyihiin maxaad ka wada maya maadaama uu 1.5 abuud qaybsiga lagu qaybsadaa wadanka 4.5 si loogu gudbo ama dhibaatooyinka ka dhalan karo 4.5 inaa ka gudubno inay anaga dan noo tahay bay iga ahayd okay ma ku jirtaa fiidiyowgaaga hadalkan hadda aad sheegayso adiga oo in si looga gudbo dabcan ha waa ku jirtaa ma keeni kartaa adu qoraal marka fiidiyowga la soo dhigaa qoraal la soo raacsiyaa su'aal maxkamadaha hortaagan tahay su'aal la weydiina ujeedkana waxa waa in cadaalad la gaaro ma aha wax adiga si gaar loogu challenge gareynaa ma hadalka aad soo bandhigtay xafiiska xeer ilaalinta wuxuu soo gudbiyay فيديو أتكهلا يسوق قفبل على هذا صح أو قبائل هذا وعلى هذا بحسن قرب ليه وحد شيء تي سببت أساء أسمينه إن إتاس 4.5 كي وحسن لو جود بينته صح هذا الكفيديو جاء ما كنت جرت سين لو جود بأرض بعد تداستاجن أو إيداس أو أنت سوق فوت هالمال وده جوكت إن لو جود بينته أو وده كلام أما مال كلا الآدم ما كنت جرت فيديو جاء ما يقرأ لا جر لكن xafiiska xeelaalintu waxay sheegeen dooddoodii markay soo gudbinayaan 114 inaad wada bajaaj aheeday laysin la'aana aheed ma jirta arrintaas waa sax laysin meesad wax laysin ma bajaaj inaad wado mu baahan tahay inaad sharciyad hesho ku wado طبعا ها ya طبعا okay dhaliilahaaga oo hadda aad ka waday in muxuu hal qabiil iyo macnaha dadka noocaas oo hadda aad tiriyayso aad dhaysay waa qabiil hebel waa hebel oo ka yahay meesha soo joog aan lahayd waxaad u hadlayso dawladnimo ma ahayn iyo waxaan la saxo sida hadda sheeg ha okay adii naftaada maxaa ugu bilaabeyso laysin qaado weys sida dawladnimo tabara ii diiday ya tabara ii diiday laysinka inaan qaato laysin ma qaal ugu qaataa 130 iyo dhowr lagu qaataa bajaajta kiriye sooma ya bajaajta kiriye kiriyeeda qofka maalintii meeqa ka qaataa qofka $15 loo diraa qofka iska leh mootada $15 qofka oo darawalka oo kirada lacagta marka uu bixiyo maxaa u soo heri kara macnaha maalintii markuu shaqeeyo $5 $6 u soo heri karto page-kaaga TikTok ama tusi kartaa ها وين توسكره إمس قفا أفلو كوا لو بقول 15 وحساس إمس فيديوهات هال فيديوهاش ولا جحر مركب أفرتي شنطة مع الرومان اللي يجرى محكمة وحي أمر كوب بحسي فيديوهاش إنها كبحيو هاي اوكي wax video kuma jiro hal markaas ka bixi ma aqaan wixii kale laakiin maxkamadda amar ku bixisay isla xiligaas ina video ka saaro mobilkan markaas waxa iga maxkamaddu waxay amartay in mobilka 50 daqiiqo la siiyo si ay uga saaro waxa mobilka qabteen baarihi kiiskeyga ee nin kale oo la ii sheegay taliyay saldhiga degmada kaxda inuu yahay teleefankeyga markaas wixii ka dambeeyay hal saac iyo 2 saac haysteen ayaga haysteen waa u furay aniga ayadoo warqad fatashaad aysan dalban garsooraha wuxuu dhahay hadii ay joojin weydo kidii waa warqad fatashaad lagu qoraa lahay baaraha kiiska taas maxaa lagu eeday barnaamijka sameeyay aniga iyo bajaajley barnaamijka ay hay okay
ما قمنا حرنت هذا 74 maalin. اوكي